kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Bisla TV waxaad ku soo dhawaataan war wixii naga soo gaaray geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobo xiiso badan ayaa daawan doontaan intii socoto xili tabinteena wareed balse aan ku hormaro kuwooda ugu doorka rool leh dowladda Soomaaliya ayaa dalka Turkiga waxay tababar ugu soo xidhay 49 hablood oo ka tirsan booliska Harimacad ee Soomaaliya kuwaas oo dhawaan loogu qaaday dalkaasi Turkiga inay tababar ku soo qaataan dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta hubiye gaadiid dagaal ku wareejisay maamulka Galmudug. Soomaali taariibayaal oo ka tagay Turkiga ayaa ku go'doonsan xuduudda Belarus iyo Lithuania. Somaliland waxay markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya inay qaabilayso qaxoonti reer Afghanistan. Intaas waa qodobada warka kuwooda ugu doorka rool leh imikii aadna waxaa isku diyaarisan faahfaahinta warka oo dhammaystiran. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو هنكسن داودياشة قيمها أي قدرين تنقمدنا وهالكني وشانل كبسلة تي في أو كلا سعون دونتان ورر سجان وربحنا حساسي برامج شيء أدو حساب بدن هو سي أو يكمل ذهين برامج كنا يرادا هوين كياري مه بلشدة داوديال أد بدو مهسنتين أصحابتي أنا كحرن شانل كا صدا كلا وحنا كعدسنا أصحابتنا نقولنا إن شانل كنا صارن لايك تشير تا يسبسكرايب تا وحنا كلا سعون كرتان برتان كلنا هاي براه بلشدة سيدا فيسبوك يوتيوب يتويتر بلنتين ومركز تا وشانل كا بيسلة تي في saliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa dalka Turkiga tababar ugu soo xidhay 49 gabdhood oo ka tirsan ciidanka booliska gaarka ee Harimacad oo tababar loogu qaaday gudaha wadanka Turkiga. Saliyaha booliska oo ka hadlayay munaasabadda tababarka lagu soo xidhay ayaa sheegay gabdhuhu inay qaateen tababar heerkiisu sareeyo oo qayb ka qaadan doonaan dadaalada loogu xoojinayo dhismaha iyo tayeynta ciidamada booliska Soomaaliya waa cutubkii ugu horeysay oo gabdha ah kana tirsan ciidanka booliska sida gaarka ah tababarana Harimacad oo tababar ku soo qaatay dalka Turkiga iyadoona hore dalkaas ay tababar ugu soo qaateen ciidamo fara badan oo ka tirsan Harimacad iyo kuwa ciidamada gorgor dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadan dib ugu soo celinaysa Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgallada Harimacad waxayna maalmaha soo aadanayso gaari doonaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta hubiye gaadiid dagaal ku wareejisay maamulka Galmudug oo dagaal xoogan kula jira ururka Al-Shabaab dagaalkaas oo ka socda deegaanada koonfurta Mudug. sidoo kale waxay Puntland maamulka Galmudug ku wareejisay booyadaha biyaha iyo gaadiidka gurmadka degdega waxayna wareejintan ka dhacday xarunta madaxtooyada Gaalkacyo. mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ayaa sheegay talaabadan inay qayb ka tahay derisnimada iskaashiga iyo wax wada qaybsiga ka dhaxeeya labada maamul si ay nabad ugu noolaadaan shacabkoodu. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa Puntland uga mahad celiyay taageeradeeda ku aadan garab istaaga dagaalka ay Galmudug deegaanadeeda uga xoreynayso ururka Al-Shabaab. 40 qof oo Soomaali oo taariibayaal ayaa lagu soo warramayaa inay muddo 7 cisho ku xaniban yihiin inta u dhaxaysa dalalka Belarus iyo Lithuania iyagoo loo diiday inay safarkooda sii wataan. Soomaalidan oo markii hore ka tagay gudaha wadanka Turkiga ayaa doonayay inay taariikh ku golaan dalalka kale ee qaaradda Yurub. ciidamada ilaalada xuduudda ee dalka Belarus ayaa ka jeexjeexay dhammaan dukumentiyadii ay ku safrayeen. qaar ka mid ah dadkaasi warbaahinta la hadla ayaa sheegay in safarka ay qayb ka yihiin caruur iyo dad waayeela isla markaana ay wajaheen dhibaatooyin isbiirsaday una baahan yihiin caawimaad. waxay sheegeen in 2 gabdhood oo ka mid ah ay geeriyoodeen kadib markii iyagoo ka cararaya ciidamada Belarus ay ku dhaceen webi. 7 maalin waxaan joognaa meel aan qorax ka jirin oo baraf iyo roob ka da'ayo meel aan u gudubna ma hayno ciidamada Belarus waxay nagu dhaheen haddaad noo soo gashaan waan idin dilaynaa ayuu yiri Xasan Cabdi oo ka mid ah Soomaalida ku go'doonsan xuduudda labada wadan. Soomaali fara badan ayaa sanadihii dambe ku sii qulqulaya qaar ka mid ah dalalka Yurub waxaana qaarkood ay la kulmeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil iyo dhibaatooyin kala duwan. xukuumadda Somaliland ayaa warar aan rasmi ahayn ku tilmaantay wararka sheegaya in Somaliland ay qaabilayso qaxoonti reer Afghanistan sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Suleyman Yusuf Cali Koore oo wareysi siinayay idaacadda madaxa bannaan ee BBC laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay inaanay xukuumadda Somaliland waxba ka ogeyn wararka sheegaya in qaxoonti reer Afghanistan iyo Somaliland imanayaan isla markaana aanay jirin xog rasmi oo xukuumaddu arrinka warbaahinta ka siisay. waxaa laga yaabaa inay yihiin warar aan diblomaasiyadda iyo saxafiyiinta soo dhaafin laakiin warka ah in Somaliland qaxoonti Afghanistan qaabilayso anagu warka ma hayno wararka la isla dhexmarayana waa warar aan weli ila rasmi ah oo dhinacyada ah aan ka soo bixin ayuu yiri wasiir Koore.
xilli wareysi siinaya idaacadda BBC-da qeybteeda afka Soomaaliga. wakaaladda wararka FP ee laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa warbixin ay daabacday 27 bisha ku sheegtay in sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo magaciisa la sheegin uu sheegay in Somaliland ay qaabilayso qaybo ka mid ah qaxootiga reer Afghanistan. warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal dhex maray ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Koonfur Galbeed ku leeyihiin degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegay inuu ka dhashay dagaalka oo ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta qaybaheeda kala duwan. saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka kaga yimid shabaab. ciidamada Koonfur Galbeedna ay wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ayaa waxay tibaaxayaan in xaaladdu ay haatan tahay mid degan walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Qansax Dheere. magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa maanta soo gaadhay ciyaartoyda xulka gobolka Highland oo maalmihii la soo dhaafay ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada Puntland ee ka socday magaalada Garowe. xulka Highland oo horkacayo ciyaartoy Xamse Sheekh oo ka mid ah ciyaaryahanada u dhashay Somaliland kana soo jeeda gobolka Togdheer ayaa waxay caga dhigteen garoonka Aadan Cadde International Airport waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan ay wada ciyaaraan xulka Highland ee anta koobka gobolada Puntland iyo kooxda Horseed oo iyadu hanatay horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya. kulankaas oo xiiso badan ayaa loo balansan yahay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. asiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Saleeman Saajin oo maanta hortagay guddiga joogtada ee golaha guurtida Somaliland ayaa waxa warbixin ka siiyay guddidaasi howlaha shaqo ee wasaaraddu qaranka u hayso, waxyaabaha u qabsoomay wasaaradda iyo weliba qorshaha mustaqbalka, isagoo carabka ku dhuftay caqabada ay lahaatan hortaagan wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland. wasiir Saajin hadalkiisa sii wadsa ayaa waxa uu carabka ku dhuftay in wasaaraddiisu horumar ballaaran ku tallaabsatay tan iyo markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay xilka wasaaradani. waxaanu halkaasi kaga jawaabay su'aalo ay weydiiyeen qaybo ka mid ah xildhibaanada qaybta ka ah guddiga joogtada ee golaha guurtida Somaliland. gabagabadii kulanka dhex maray guddiga joogtada iyo wasiir Saajin ayaa kusoo idlaaday is-afgarad buuxa. maalmihii u dambeeyayba guddiga joogtada ee golaha guurtida Somaliland ayaa dabagal xoogan ku hayay qaar ka mid ah golaha wasiirada Somaliland ee xukuumadda madaxweyne Biixi, waxaana tiraba dhowr jeer hawada ka baxay silbarhaantaana ka baaqday kulan ay u fidiyeen xildhibaanadani. wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo tiraba 3 jeer ka baaqday inuu hor imaado guddidan ayaa toddobaadkii u dambeeyay waxay soo martigelaysay islamarkaana warbixino ka dhageysteen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland, wasiirka waxbarashada, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi, maareeyaha hay'adda madaarada Somaliland Cumar Sayid Cabdilaahi iyo wasiir Saajin oo maanta isna hor yimid golahaasi guddiga joogtada ee golaha guurtida Somaliland. ciidamada cirka Israa'iil ayaa maanta weeraray 2 goob oo ka tirsan Gaza kadib markii shacabka deegaanka Gaza iyo ciidanka Israa'iil ee xuduudda isku dhaceen, sidoo kalena buufino soo qaatay walxaha qarxa lagu weeraray koonfurta Israa'iil sida ay ciidanku sheegeen. weerarkan ayaa yimid iyadoo Masar iyo Israa'iil ay qafiifiyeen xayiraadaha socdaal iyo ganacsi ee lagu soo rogay marinka Gaza, halkaas oo labada dal ay go'doomiyeen tan iyo markii ay Xamaas qabsatay 2007. ilaa hadda ma jiraan warbixino laga heli karo Gaza oo ku saabsan wax khasaare oo ka dhashay weerarada Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza. dibadbaxyada shalay dhacay ayaa ciidamada Israa'iil waxay sunta dadka ka ilmeysiisay bambooyinka aan qarxin ku weerareen shacab Falastiiniyiin oo gubaya taayiro meel ku taalo xuduudda Gaza iyo Israa'iil. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in 11 qof oo Falastiiniyiin lagu dhaawacay isku dhacyadaasi. ugu yaraan 30 askari ayaa lagu dilay, 60 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo Xuutiyiintu ay ku qaadeen saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ee Koonfur Galbeed Yemen. sidaas waxaa sheegay afhayeenka ciidamada koonfurta iyo ila caafimaadka.
Xuutiyiinta ayaa dhowr weerar qaaday iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droonka iyo gantaalaha balastiga iyagoo beegsaday saldhigga military ee Al-Anaad. Afhayeenka ciidamada koonfurta Yemen Mohamed Al-Naqiib ayaa sheegay Axadii. Naqiib waxa uu sheegay in inta u dhaxaysa 30 ilaa 40 askari la dilay, ugu yaraan 60 kalena lagu dhaawacay, isagoo inta ku daray in laga yaabo in dhimashadu ay weli sii korodho maadaama gurmadku weli nadiifinayo goobta ay mashaqadu ka dhacday. Ciidamada koonfureed ayaa ka mid ah isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca fallaagada. Laba ila caafimaad ayaa sheegay in dhowrmeyd ay soo gaareen cisbitaalka weyn ee gobolka Lahaj oo ay la socdaan 16 kale oo dhaawac ah. Ma cadda in dad rayid ah ay ka mid ahaayeen dadka waxyeelada soo gaadhay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in dhowr qarax oo xoogan laga maqlay aaga Al-Anaad oo qiyaastii 70 kiiloomitir waqooyiga ka xigta magaalada dekedda leh ee Cadan. Dhowr kale oo ka mid ah dadka ku nool magaalada lagu muransan yahay ee Tays ayaa sheegay inay maqleen gantaalada balastiga ee laga soo tuuray xaafadaha bariga magaalada ee ay Xuutiyiintu haystaan. Qarax xoogan ayaa ruuxay qayb ka mid ah waqooyiga caasimadda Afghanistan ee Kabul oo u dhow garoonka diyaaradaha, halkaas oo ka dhacay weerar argagixiso oo geystay khasaarihii ugu weynaa Khamiistii la soo dhaafay. Ilo wareediyaha ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Anadolu. Ilo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka oo codsaday inaan la magacaabin maadaama aan loo ogolaan inuu warbaahinta uu la hadlo ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray meel aan la garanayn uu ku dhacay goob la degan yahay oo u dhow madaarka caalamiga ah Hamid Karzai fiidnimadii hore. Khasaare ayaa laga baqayaa, laakiin faahfaahin degdeg ah weli lama hayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay suurtagalnimada weeraro aad u badan waqtigan kala guurka ah maadaama saacadu ay u socoto si buuxda ama si dhaqso leh, kaas oo ay tahay ciidamada Mareykanku inay uga baxaan waqtiga ugu dambeeya ee salaasadan soo socota, taas oo ay jaangooyeen Taliban oo la wareegtay talada dalka iyo midda caasimadda Kabul 15 August. Si kastaba ha ahaatee, wararka hadda soo gaaray ayaa sheegaya in ciidamada Mareykanku ay Axadii weerar ku qaadeen drone magaalada Kabul, halkaas oo ay gantaalo la beegsadeen qof nafti hore ah oo saarnaa gaari doonayay inuu weeraro garoonka diyaaradaha, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Waa Nasro Cumar, Bisla TV. Watahay daawadayaal, qodobkaas ayaa guriga gabagabo u ahaa warka Bisla TV. Intaanu ku kulmayno warkan iyo wararka xiga, waxaad kaga tegaynaa intaanu kulmayno mar kale. Sidaas iyo nabadgelyo kulanti dambe oo xiiso leh.